aadaa waa laga soo badayaa joojiye waa soo guulayseena koobna idin keenina. maxaad ka taqaanaa macallinkii ugu horreeyey ee guul u soo hooya Soomaaliya kadib burburkii dowladda kacaanka? Nuur Maxamed Amiin waa qofka ugu hadalaynta badan xilligan baraha bulshada ee Soomaaliya, waana macallinka xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yartahay 17 sano. maantana ku guuleystay tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee ciyaartooydu da'doodu ay ka yartahay 17 sano. waxaana kulanka hogaaminayay oo kooxdan ku guuleystay tartanka tababaro u ahaa Nuur Maxamed Amiin oo sidoo kale kamid ahaa ciyaartooydii hore ee Soomaalida. hadaba warbixintan ayaa idin kugu soo gudbin doona taariikhda Nuur Maxamed Amiin, hogaamiyihii xulka kubadda cagta ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ee maanta wacdaraha ka dhigay tartankii bariga iyo bartamaha Afrika. balse kor warbixintan fadlan muuqaalka like saar si share garay oo la wadaag saaxiibada Facebook qaybta hoose ee comment-gana inuu la wadaag aragtida ku aadan muuqaalkan. sidoo kale si aad ula socoto warbixinada iyo muuqaaladan halkan ku baahino fadlan like iyo follow page-kayga Cabdinuur Ciise Qalamed. xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ayaa maanta ku guuleystay tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee ciyaartooyda ay da'doodu ka yartahay 17 sano. waxaana ciyaarta hogaaminaya oo tababaro u ahaa nin horey Soomaaliya u soo gaarsiiyay guulo waaweyn. Nuur Maxamed Amiin ayaa kooxdan wato oo tababaraha u yahay waxa ay horey tartankan guulo uga soo hooyeen dalalka Itoobiya iyo Uganda, iyagoo maanta soo hooyay guul taariikhi ah kadib markay ciyaarta kama dambayska ee tartankan xulka Suudaanta Koonfureed ay ku garaaceen 3-1. Nuur Amiin ayaa BBC-da u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay horumarka ay sameeyeen dhalinyarada ciyaartooyda ah ee uu tababaray. marka laga soo tago macalinimadiisa, isaga qudhiisa ayaa hore xirfadiisa ciyaaryahanimo kaalin weyn ugu soo qaatay, guulo badan u soo hooyay xulka qaranka Soomaaliya. mar uu la hadlayay BBC-da ayuu yiri muddo 14 sano waan u ciyaaraya qaranka, hal habeen oo kaliya ayaan galay kursiga kaydka, kuma aana dhameysan ciyaarta oo waxaan soo galay qaybtii dambe ee ciyaarta. isla habeenkaas oo ciyaarta soo galay 15 daqiiqo ee ugu horeysay ayuu Nuur Amiin sameeyay ficil taariikhda galay ilaa ay haatan dadka qaar ay xasuustaan. waxaa la soo geliyay ciyaar qayb ka ahayd tartanka Carabta ee Al Arab Games oo ay Soomaaliya martigelinaysay sanadkii 1979. Nuur Amiin qudhiisa oo ka sheekeynaya marxaladaas waxa uu yiri rabbi saacadihii ugu dambeeyay aan soo galay ayaa alle waxa uu qadaray inaan goolkii ugu horeeyay ee taariikhda ay Soomaaliya ugu gudubtay ciyaaraha kama dambayska ah. ciyaarta oo mareysay 1-1 ayuu Nuur Amiin dhaliyay goolkii labaad ee guusha, waxa uuna Soomaaliya ay u gudubtay xilligaasi tartanka finaalka ee Arab Games. darankayga waxaa hadda ka bilowday in wixii hore fikirkeena aniga ciyaartooydeena heer kubadda cagta Soomaaliya maamulkii waxay tahay maadaama tartan u socdo tartanka waxaan ka qayb galayno waa inaan u soo guulaysanaa insha Allah ta'ala bismillahir kariim oo ku soo guulaysanaa haddii Ilaahay rakano. haddii Soomaaliya qadartana qabatana qadar Ilaahay aamina rabbi iyo qadartiisa insha Allah maalin kasto eraygan ka daba taagantiin maxay aadaa waa laga soo badayaa joojiye waa soo guulayseena koobna idin keenina. إلهي ذيك قدرة دين قتنا، إحنا قبتنا، دي قدرة إلهي أمسنا هذا. السلام عليكم.